diyaarad nooca militariga oo la socday madaxweyne ku-xigeenka dalka Malawi ayaa la waayay halka jaan iyo cirib ay dhigtay sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dalkaas oo xogtan si kooban warbaahinta ula wadaagay. diyaaradaha militariga ayaa ku howlan baadigoobka madaxweyne ku-xigeenka dalkaas waxaana loo badinayaa in ay cilad qabsatay ama shil ay gashay inkasta oo ayna warkaasi xaqiiqsanayn balse waa mid ka mid ah hadalhaynta taagan. xiriirka diyaaradda ayaa la waayay waxaana isgaarsiinta gaarka oo ah diyaaradaha laga laayahay diyaaradaas oo la socday madaxweyne ku-xigeenka dalka Malawi waxaana la socday 9 xubnood oo aan la shaacin darajadooda iyo xogtooda. diyaaraddu waxa ay ka soo duushay caasimadda dalka Malawi waxa ay ku guul dareysatay in ay ka degto garoonka caalamiga ah ee Mzuzu oo 370 kiiloomitir kaga beegan dhanka waqooyi ee xarunta dalkaas. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.